saacado kooban oo kaliya ayaa ka hadhay dharaartii codbixinta doorashada madaxtinimada Somaliland oo idil ahaanba dalka ka qabsoomi doonta maalinta berri oo Isniina kuna taariikhaysan 13 bisha November. Xisbiga wadani oo xilligan ah midka sida weyn loo wada saadaalinayo inuu ku guuleysto doorashada codaynteedii berri loo dareerayo ayaa waxa murashaxiisa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro maanta ku sugan yahay xarunta xisbiga wadani boqolaalka kun ee codbixiyayaasha reer Somaliland muddada dhowrka bilooda khadka taleefanka codkooda ku weydiisanayay. Cirro toos ayuu khadka taleefanka uga hadlayaa codbixiyayaasha reer Somaliland saacadaha ka hadhay doorashada. Halkani waa xarunta call centerka loogu yeedho Murashax Cirro kaliya dadka ma wacayo waxa iyaguna khadadka kala duwan dadweynaha ka wacaya codkoodana ka weydiisanaya hawlwadeennada sida khaaska ah ugu tababaran shaqada ay halkan ku hayaan. waa kan murashaxa oo muwaadiniinta codkooda weydiisanaya. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا مواطن. بشرحيته وانتهي. هذه قلت إسمعنا الله ينعذي لك حبي أن عطيه كسيه محابيك ودونتا. إن شاء الله مواطنين تدمان وحنو بالله نينا نوصل منه أديك أساسية أي كم تاي وحبرشدو عافيماتك بيها laydhka iyo wadooyinka iyo dhammaan horumarka kaabaya nolosha muwaadinka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ana wayga daacad adna codkaaga insha Allah wada siin doonta berito. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dadweynaha murashaxu khadka taleefanka kula hadlayo qaarkood u qaadan waa ay la tahay kuwana kolka ay aqoonsadaan inuu yahay Dr. Cirro qofka la hadlaya shuruudo mustaqbalka ku aadan ayay ku xidhayaan. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة. waxaa kula hadlaya muwaadin musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. waxaan ku soo garaacay dhammaan muwaadiniinta Somaliland inaan garaaco oo weydiisto codkooda berrito insha Allah marka codkaaga marti kaaga ahay ma siisa. haddii aad Cabdiraxmaan Cirro tahay oo aad u sheegaysid iyo ku siiyay telefoonkayga telefoonka waqtiga nasiib ahaa muwaadiniinta oo dhan gargaraacayay marka adigu kuma garanayo laakiin telefoonada waan gargaraacayay dhammaan telefoonadii aan helay. صح جدي عند رفعني أباهي وعسكري gaye qoyskayguna haddii boqolkiiba ciidamada mushaharkooda 250 kordhinayso ayagoo xalid ku codeyn maayo qoyskayga oo dhan waan ku codeynayna. maasha Allah 250 waa kordhinaynaa gurina waa u dhisaynaa haddii ilaahay ka dhigo ciidanka haddii ilaahay ka dhigo aniga qoyskayga waan ku codeynayna. mahadsan. dhanka kale waxa taasi barbar socota qorshaha xaruntan call centerka loogu yeedho oo xisbiga wadani muddo 6 bilood dadka codkooda ka weydiisanayay in murashaxu ku talagalkii ahaa in lagu beegsado muwaadiniin ka badan 200 kun oo ruux oo codbixiyayaal ah intii codkooda u ogolaatay inay Cirro siiyaan inuu toos murashaxu ugu mahad celiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan shacbiga Somaliland dhamaantii salaamaya oo diyaar garoobaya berrito inay codeeyaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland 13 November. xarunta telefoon wicida xisbiga wadani waxay ku guuleysatay ilaa hadda inay gaadho oo la hadasho muwaadiniin ku dhow 200 kun. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan muwaadiniinta taageertay inay codka ay siiyaan anigoo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. inta ka cudur daaratayna waan u mahadnaqayaa inta aan la gaadhin waan u mahadnaqayaa laakiin dhammaan waxaan ugu baaqayaa inaanay berrito ka habsaamin inay codkooda dhiibtaan kuyadana iyo goobaha lagu talagalay inay goor hore yimaadaan. waxaan idin rajaynayaa guul doorasho wanaagsan oo nabad inoogu dhacda. aad iyo aad baa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. howlaha doorashadu habsami ayay ilaa iyo haatan u socdaan qorshe kasta iyo ku talagalkiisuna xisbiga rajada shacabka wuxuu ugu socdaa sidii loogu talagalay. rajadiisa guushuna waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd kolka laga yimaado qadarka qaa'ibka ah iyo guusha kursiga oo gacanta Ilaahay iyaduna ku jirta. Cabdirasaaq Teera
magaalada Hargeysa.